فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الله أكبر. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marweyn dacalada adduunka meel kasto aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahintiinii ku bahawday Southern Media Corporation iyo teamka jugta culus oo mar walba idin siiya xaqiiqooyinka ugu dambeeyay ee wararka geeska Afrika iyadoo bishii Ramadaan ee barakaysnayd maalin ama daqiiqada ay ka harsan tahay waxaanu jecelnahay inaan idin la wadaagno wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ogeysiise waxaa naga ah in bisha barakaysan ee Ramadaan muuqaaladeena aan yarayn doono oo aan gaabin doono laakiin taasi macneedu aanay ahayn dadka reer Mayland in ay afka qabsadaan oo ay aamusaan loo baahan yahay dadka reer Mayland in ay xaqoodu dhaxsadaan oo Ramadaanku waa markii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu dagaal galiyay asxaabadiisu sidaas daraadeed loo baahan yahay bisha Ramadaan in dadaalka iyo halganka macnii la sii laba jibaaro wixii kufsi iyo dhac iyo xaq dara ah in laga wada hadlo macnii laga hadlo la doonayo loo baahan yahay ay tahay walaalayaal haddii si fiican aad ii maqli karaysaan ama ma arkayse macnii codka uu gaaban yahay waxaan jecelahay inaad ii sheegtaan waxaan idinla wadaagayaa daqiiqado kooban haddii Allaha awoodda leh uu ka raali noqdo shir ayaa ka dhacay degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose ee Jamhuuriyadda Barakaysan ee Mayland shirkaasi maanta ayaa loo qabtay dadka Walaweyn degan ee reer Mayland iyo waliba kuwa ku soo duulay ee Salbalaar 2 oo iswata oo dhan ayaa loo qabtay waxaana shirka qabanaya laba mas'uul oo macnihii ay ka midka yihiin taliyaha guutada 7aad ee qaybta 6aad iyo ma arkayse wasiirka dekadaha maamulka Mayland lagu sheegay ninka la yiraahdo Umar Ahmed Umar ninka la yiraahdo ayaa macnihii shirkaasi qabtay laakiin waxaan rabnaa shirkaasi waa lagu soo kala tagay tabarta ayay xaajadu ku soo dhamaatay dagaal iyo qababac ayaa lagu soo kala tagay nabad iyo maslaxad meesha kama aysan jirin awalna looma agaasimin awalna looma tagin marka waxaan rabnaa inaan shirkaasi qaabkii uu ku bilowday iyo saacadu bilowday iyo meesha uu ka dhacay inaan idin sharaxnaan u baahannahay markaas kadib waxaad ka bogan doontaan oo ama aad ka dhargi doontaan xaqiiqada iyo waxyaabaha ka socda Walaweyn iyo eeriyadeeda ayaad fahmi doontaan shirka waxa uu ka dhacay iskool dugsi sare Walaweyn meesha loo yaqaan oo ku taala ama oo ku yaala degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose Jamhuuriyadda Barakaysan ee Mayland ayuu shirkaasi uu ka dhacay waxa la isugu yeeray odayaasha iyo waxgaradka reer Mayland dhammaantood oo isku duuban Walaweyn wixii degan oo ku nool oo dhan ee reer Mayland sidoo kale shirka waxa ma arkayse ka soo qayb galay nimanka hubaysan ee iyagu Hirshabeelle ka soo duulay oo ka soo duulay ma arkayse Galmudug oo ka soo duulay Muqdisho qayb ka mid ah iyo ilaa iyo ma arkayse macnii Beledweyne ayaa isugu yimaaday laba dhinac baa loo wada fariistay shirkii marka la fariistay Salbalaar waxay macnii isla soo taagtay nimanka reer Toorotorow iyo nimanka reer Baydhabo iyo Bakool iyo Gado waa in shirka laga saaraa calaashaan mirifle waa inuu ka baxaa shirkay dheen yaa sidaasi dhahaya waxaa sidaasi dhahaya Salbalaar 2 oo iswadata annaga qabiil meeshan kama dagaalamin baan idin sheegi jirnay reer Amiin Jeesow
reer beledweyne way ku jiraan iyaguna ma arkayse macnihii reer shuute reer islow reer macnihii galmudug reer dhuurxayr iyo indhacadde dhammaan waxay soo dhejiyeen shirka waa in laga saaraa reer toorotorow waa in laga saaraa waa in shirkaani laga saaraa guud ahaan wixii baay bakool iyo geda ka soo wada dhigo mirifla oo dhan waa in laga saaraa shirka waxaan keliya la shiraynaa annagoo salballaar huwan iswadata keliya reer walaweyn ama shanta ayaan la shiraynaa keliya ayay dhaheen dadka mayga waxaan idiin sheegayaa niman afka mayga ku hadlaaya haddaad aragtaan oo kala qaadqaadaya macnihii maxamed iyo ma arkayse cali labada wada dhalatay ama digil iyo mirifle saa u taqaanid iska ilaali waa kuwii soortaada iyo caanahaada cabbay ee raba inay ku kala jebiyaan waay bal annagu waxaan aaminsannahay mayland geeska afrika dadka ugu badan waay 10 gobol bay degaan gedo jubbada hoose jubbada dhexe bakool shabeellada hoose baay banaadir iyo shabeellada dhexe iyo hiiraan reer mayland baa iska leh reer mayland marka lagu sheegana waxa weeye maygu waa may duruqbe waa may 12 koofi waa may marka dadka degan waa may baajuun waa may tumaal waa may riibo waa may jareer weyne oo ilaa hiiraan degan oo isbaarooyinka qaata ilaa shabeellada dhexe waa may waa mayland sidoo kale ma arkayse carab soomaali waa mayland macnihii jimbini nimanka ku hadla barawani waa mayland macnihii bortuqiis soomaali waa mayland turki soomaali waa mayland carab soomaali waa mayland waagii horena macnihii dhulka mayland bay soo degeen meeshaas ayay iqaamooyinkooda ku haysan jireen waa la yaqaanaa ilaahay xaaji dameeri marka war iyo dhammaantii waxay soo dhejiyeen shirkii lagu qabtay maantay dugsi sare ama iskool dugsi sare ee walaweyn waxay dhaheen shirka hana laga saaro nimanka baay iyo bakool iyo geda ka soo jeeda ee mayga ah ama reer mayland waa inna laga saaraa sidoo kale waa inna laga saaraa reer toorotoro waa inna laga saaraa annagana haddaanu nahay reer galmudug haddaynu nahay reer macnihii hiiraan haddaynu nahay reer hirshabeelle ama shabeellada dhexe haddaynu nahay reer shuute reer islow haddaynu nahay reer ceelbuur dhammaanteenna shirka waan ku jiraynaa hal dhinacaan u wada jeesanaynaa calaashaan magacay soo qaateen waxay dhaheen annagoo irir ah annagoo irir ah waxaan la shiraynaa 5 caleemood bes kuwaan kale hana laga saaro warmay sida waraa dhacay idaacadooda waxyaabaha qaar kuma sheegaan waxay ku sheegaan waa been iyo makri ay soo dhisaan dhageysanina waxay dhaheen mirifle ma arki karno shirka waa in laga saaraa waxay dhaheen ma arkayse reer toorotoro ama garre waa in laga saaraa mirifle oo dhan 22 qabiil shirkan waa inuusan fadhiisanin na laga dhex saaraa garre waa in laga saaraa reer afgooye boqortooyadii iyadana waa in laga saaraa marka iskaba dhaaf xisaab maba ku jirtaba haye see rabtaan annagu waxaan rabnaa keliya 5 caleemood dadka la yidhaahdo annagoo irir ah dhammaanteenna reer hiiraan reer hiirshabeelle reer cadalle reer muqdisho dhammaanteenna 5 caleen bes inaan la shirnaan rabnaa bay dhaheen shanta caleen haye maa laga sugaayey maya waxay dhaheen nimayo annagu maylaanaan nahay adinkuna waxaa tihiin salballaar tuubaa tihiin oo isu soo bahaysatay oo huwan ah annaga na kala qaadqaada idinma aynan dhihin haddii nabad aad doonayseen annagu xabad joojintii shuute guddoomiyaha maxkamadda qalabka sida uu ku baaqay tiiyaan hirgelinaynay ee islama aynan fariisaneen walaweyn macnihii meel aan ku wada fariisano ma ahan dhul aad leedihiinna maahan nimanyahow haddii guddoomiyaha maxkamadda qalabka sida iyo dowladda federaalka sida ay ku baaqday annagoo tixgelinayna haddii aad nala qaadateen
nimayow ma arkayse mirifle iga saar iyo macnihi garre iga saar teorotorow iga saar iyo gallada iga saar iyo sheekooyinkaas iyo biimaal iga saar xagga dhiga annaga mayland nala dhahaa jareer iyo jileec mayland qowmiyadu waay idinku haddii irirba aad ku socotaan yah oo macnihi isbahaysi asal ballaar dhulkan aan u dhalanoo duulaan aad tihiin nimayahow wada hadalka noo fura meesha yaa taagan wasiirka dekadaha maamulka mayland ee baydhabo fadhiya reedow nin la yidhaahdo axmed cumar nin la yidhaahdo iyo taliyaha guutada 7 axmed cumarkaasi waa mayland oo u dhashay weliba wala weyn inuu ka soo jeedaan u malaynaya taliyaha guutada 7na waa hirshabeelluu ka soo jeedaa oo nimanka macnihii irir baan nahay hadda taagan irir iyo 2020 irirka macnihii Somaliland guryaheeda lagu dhacayo Muqdisho gabdheeda lagu kufsanayo waa irirka xataa mararka qaar annaga naloo sheego oo la feen inta loo yimaado adigu irir baad ahayd oo marka dheefta ay timaadana macnihii eelay baa tahay la dhahayo ama idoor baa tahay ama jareer baa tahay ama macnihii la dhahayo waa irir la yaab leh waa irir cajiib ah irirkaasi isku soo wada duub taliyihii guutada 7 cumar xaaji cabdiraxmaan oo hirshabeelle ka soo jeeda iyo ninka la yidhaahdo axmed cumar oo ah wasiirka dekadaha nimankii kama baxayna markay dhaheen reer mirifle iyo garre shanta caleemoodna ay tiri wax dhaqaaqay ma jiro annaga maayaanahay ee laba dhinacaan u wada fadhiisanno qaaraaba baxayba nimankii irirka sheeganaya maya annaga gogashaan fadhiisan mayno wallay ka tahay oo reer amiin jeesow ay u horreeyaan wallay ka tahay wallahi inayna wada hadlaynin ma fadhiisan karnaba meel ma arkaysa mirifle uu soo fadhiistay meel garre uu soo fadhiistay we cannot ma fadhin karno haye xaalkiina meeshaasuu maraya haa hadda annagu ma arkaysa dhulkeennaan joognaa idinkaa noo yimaaday dawladdan tixgelinaynay haddaynan ogolaan iska baxay ay dhaheen ma arkaysa nimankii reer walaweyn ama mayland ee kuwaan bixi maayaane sheekada markay meesha joogto taliyaha guutada 7 ayaa qoorqabad ku saaray iyo wasiirka dekadaha ayaa qoorqabad ku saaray nimankii mirifle iyo garre shirkii waa laga saaray waxaa la yidhi bal horta idinku ka baxa macnihii bannaankaasi taga shirka waa macnihii shanta caleemood iyo irira shiraaya mayga hadda uu arkayaa cudurkiisii cilladda haysata uu arkaya qasabaa lagu saaray nimankii mirifle nimankii garre qasabaa lagu saaray shanta caleemooda qol lagu soo xirtay dhinacan waxaa fadhiya dad irir dhan sheegtay salbalaartu ah oo macnihii reer beledweyne dhan waxaa fadhiya reer amiin jeesow dhan waxaa fadhiya macnihii reer hirshabeelle dhan waxaa fadhiya reer cadaado iyo reer godin laba iyo reer mareer gur iyo ma arkaysa reer ceelbuur dhammaan way safayiin shantiyaa la soo hareereeyey marka saas hadalkiyaa furmay iyagoo ay xanaaqsan yihiin reer walaweyn oo walaalooda bannaanka looga saaray waxay dhaheen soo dhowaada nimayow salbalaartuu waxay tiri annagu dhulka in naloo kala calaameeyaan rabnaa warkaa haddaba aad u dhegayso ninkii hurdow kufsiga been u maleeyow dhegayso wallaahi bilaahi tallaahi aynan been ku daraynin waxaan been u sheegnana meesha ma yaallo ramadaantiina way timaaday waxay dhaheen annagu dhulkeenna in naloo calaamadayaan u baahannahay in naloo gooyo qadkeenna calaamadna loogu jiidaan u baahannahay soodinteenna saasaan u baahannahay annaga iyo hee reer mayland weliba nimankan shanta caleemood markii sidaas ay dhahayeen shanta furkayba tuuratayba macnihii xoog ha lagu haysto ama ayaan lagu haysanin waxay dhahdeen dhegaysta taliyaha guutadow dhegayso annaga maylandna nala dhahaa dad aan dhul wadaagno oo kale oo aan may ahayn ma jiro annaga buura kamaan dhul wadaagnaa
buura kamana waa dad mirifle ah oo Mayland ah leego annaga iskale wala weyn annaga iskale yaaqbari weyn annaga iskale iidow jilla ayaa la jalaato meeshaasi kulaylka badan meel ay jalaato jirta male jille waxa weeye meel lagu gashiimaa la yiraahdaa oo macnii xoolo dhaqatada markay timaado ay ku gashiimi jirtay oo macnii daaqsinta u timaaday iidow jille annaga iskale oo hadda gabdhaha iyagu lagu kufsanaayo gooban le annaga iskale beledel amiin annaga iskale oo annaga ayaa iskale macnii ilaa iyo lagu hoolay waxa la yiraahdaa xuduudda gobolka Bay iyo gobolka Shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakaysan ee Mayland dadku leegay u yaqaanaan ma ahan waxa la yiraahdaa lagu hoolay ayaa laha waana af May lagu hoolay waxaanu daris wadaagnaa kuulow ilaa iyo Shirfoole ilaa iyo ma arkaysa macnii lagu hoolay dhulkan waa dhul waxay dhaheen reer Burakaba oo Mayland ah annaga iyaga darisa Mayland aan islanahay laakiin wixii sokadan soo mara ilaa iyo Raamakuulow ilaa iyo ma arkaysa macnii gooban la annaga iska wixii inta ka soo sokeeya Shabeellada dhexe walaalayaal dulmi way waxana lagu haysto waa dulmi dhul inoo dhaxeeyana ma jiro dadkana dhul meeshan kuma lahan duulaan weeye afkay furteen macnii odayaashii meesha lagu reebtay ee reer wala weyn leega annaga iskale wax la shigshigaaya ma ahan waxay dheen nimankan daaqsin bay ku yimaadeen xilligay imaanayeen islaantii markaasi macnihii la guursanayay ama ilmaha dhalaysay baa nool oo marqaati ah meeshan hadda iidow jilal leeyahay xoolihii markii ugu horeysay ay ku xareysanayeen oo la soo dhaweeyay mooradii baa astaanteedu taala marka sidaasi daraadeed nimayow annaga iyo dadkan dhul macnihii kuma murmayno dhulka annaga iskale wax macnihii dhul la kala calaamaynayo ama la kala leeyahay haba yaraatee ma jiro annaga iyo Burakaba wax inoo dhaxayn kara oo macnihii dad kale oo dhul nala sheegan karo ma jiro walaalahan waa soo dhaweynay marti edabley ahaayeen markii hore laakiin daaqsi xoolo dhaqatay ahaayeen daaqsin bay noogu yimaadeen nimayow nimankan dhulkooda hiiraan u jira Hirshabeelle u jira ee wixii intaasi ka badan waa dulmi iyo daandaansi iyo edab darro waa arrintaana waxay dhalaysaa dagaal 100 sano soconayo oo hadhowdii marka dambana annagana keeni doona inaan dhulkooda ku xadgudubno markaan iska macnii baxayno marka sidaa awgeed ma arkaysa macnii kama wada hadlayno dhul baan leenahay iyo malihin kama wada hadlayno nimankan waa daaqsin marti edab leh ha joogto haddaysan joogi karin wabillahi tawfiiq odayaashii horta laga cabsanayay armay luuqadda meel kala mariyaan la islaha luuqadood halkaas ay ku soo dayriyeen markay luuqadood halkaas ku soo hooriyeen taliyaha guutada ayaa hadalka qabsaday ninka la yiraahdo Umar Xaaji Cabdiraxmaan waa taliyaha guutada 7aad ee qaybta 6aad ayaa hadalka qabsaday odayaashii markay sidaa u karkareen wuxuu yiri dhul la iskuma haysto dhul ma laga hadli karo wax dhul la iskuma haysto si kala loo heshiyo oo fiirso wax dhul la iskuma haysto si kala loo heshiyo odayaashii marka waxay dhaheen oo macnii reer Mayland ee wala weyn oo dhul haddaan la isku haysanin maxaan isku haysanay haddaan dhul la isku haysan taliyow maxaan isku haysanay maxaan isku dagaalnay maxaan naloogu soo duulay haddaan dhul la isku haysan soo taliyow nimankan hadda adigoo ku hor jooga sawtan hadda leh dhulka waa in loo kala calaamadeeyaa dhulkana waa in loo gooyaa oo aan ka goosannaa koonfur galbeed ama Mayland nimanka hadda hortaada ka yiri maana leedahay dhul la iskuma haysto sidaasay ku dheen odayaasha xaajadii way dhanaanaatay markii odayaashii reer Mayland sidaas ay dhaheen kuwii mirifle iyo garana awood macnii taliyaha guutada awal uu banaanka ugu saaray shirka nimankii reer Amiin Jeeso way baxeenba shirkay ka baxeen iyo qaar kamida salbalaartu banaankay aadeen shirka banaanka markay ka aadeen haddana isla iyagii qayba kamida ayaa ka daba tagay oo soo tuugtuugay waa boor isku qaris waxa weeye baala xooftayn waay iyagii soo celceliyay war jooga iyagii la celcelina jooga okay waa la soo celiyay ugu dambayntii af ma kala qaadaynay dhaheen reer Mayland odayaashii meesha lagu reebtay oo la rabay in macnii la afjiko
waxay dhaheen annagu amarkii dowladda federaalka Soomaaliyeed annagoo fulinayna ayaan meesha macnii u imaanay xabad joojintii aan dhaqan gelinay ee gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Shuute ma fahmaysaa laakiin miriflaha laga saaro shirka galladii ha laga saaro shirka oo ha laga saaro garreha laga saaro shirka tuniha laga saaro oo beemaan ha laga saaro oo macnii maylan oo dhan ha laga saaro shan caleemood kaliya ha la reebo annagana irir Somaalaan nahay salbalartu dhamaanteena waa fadhinaynaa shirka ida darray ayd waxaan inaan dhageysano marka sidaa daraadeed war annagu qashinkan noo tuugtuugin nimankan macnii shalay iyagoo daaqsin noogu yimaaday haddana macnii aan u dhaqaaqno saacada ma joogi karaan dhulka maylan oo dhan wabillahi tawfiiqeedeen xaajada markay meesha marayso oo arintu ay dhanaan tahay shirkii la galay 9 subaxnimo ama 3 saac oo subaxnimo 9 saac iyo bar markay ahayd ayaa lagu soo kala dureeray waxaa meesha lagu soo reebtay 8 qofood oo odayaashii reer maylan ahaa ayaa qori ceeradiisa lagu soo reebtay oo la rabo macnii in khasab lagu geliyo in la aqbalsiyo oo laga dhawaajiyo media ay soo istaagaan haye waan ogolnahay reer Amiin Jeesow iyo Salbalaar dhulkooda loo gooyo ha loo calaamadeeyo in laga keeno la rabaa la soo reebtaa hadda meesha ay ku jiraan hadda waxay kula jiraan ninkii walaweyn joogow ama ninkii yaqaanow SMC iyo jugta culus meel walba way taagan tahay ma sha Allah dunidan inta badan dugsi sare ama secondary school walaweyn meesha la yiraahdo secondary school magac ma leeyahay isaga bal dhaa school dugsi sare Allah dugsi sare walaweyn Allah sarta dugsi sare walaweyn ayaa hadda lagu haystaa shirkana 9kii subaxnimo ama 3 saac oo subaxnimo geeska Afrika saacada markay ahayd ilaa iyo 9 saac iyo bar ayaa shirka uu socday oo ma arkaysa macnii sheekadii waxa loo rogay irir Salbalaar iswadato oo dhan annaga haddaan irir marka isku soo wada duub macnii hadda 8 oday baa la reebtay odayaasha markay soo baxayeen waxa la yiri hubka waa inaad dhigtaan nin qori qaadan kara male nimankan Salbalaartuna magaalada ayay hubkooda la imaanayaan yaaqbari weyn hadda way joogaan iyaga macnii magaalada ammaankeeda sugaaya iyaga ma arkaysa ciidanka deegaanka amniga sugaaya iyaga lagu bedelayaa adinkana habeenkii maqrib marka la gaaro guriyaad ku xaroonaysaan sidaas la yiri ma moodaa arintan waa arintii Baydhabo 1990 iyo ma arkaysa 6dii Caydiid markuu tagay ay Salbalaar ku haysay oo dhahaysay annaga amnigiina sugayna waa kuwii dhacayay ee deegaanka ku soo duulay oo dilayay ayaa waxay dheen amniga magaalada annaga sugayna aararee baan idinka ilaalinayna waxay dheen dadkiini ayaan idinka ilaalinayna kuwii adinka idin xoreyn lahaa kufsiga iyo dhaca iyo dilka iyo boobka idinka xoreyn lahaa shaati guduud oo hogaaminayo janankaasi ayaan idinka ilaalinayna hadalkii mikrofoonada ay u qaateen Baydhabo ay ka sheegeen iyo Bakool ma u eg yahay kani mise uma eka ha in markay odayaashii markay diideen in la yiraahdo ma xanaaqdeen ha soodintii ma goynaysaan miya ha 8 oday baan reebanay oo qasab aan ku reebanay miriflana banaankan u dhignay digilna banaankan u dhignay kale 5 caleemood kaliya iyo irir baashiraaya iyo Salbalaar sidoo kalena ciidamadii soo duulay ee macawisleyda ahaa oo leega macnii filmaanta isaga soo duubay annaga qabsanay dhahay qabsashadaas la yaab leh leego oo shabaab uu jooga aan ognahay waan qabsanay haddaysan is ogeyn awlaan idin sheegnay in goobaan leh nuurka macnii afweynaha duurka ku jira ee Amiin Jeesow kuwa dadka dhaca hogaaminaya ee Salbalaar tuuga duurka ku jira madaxda u ah inay ku heshiiyeen horaan idinku sheegay oo goobaan la looga yeeray oo la yiri goobaan la saldhig ka dhigo meesha uga dul walaweyn ha haddana markii dambe leega ay ku xoolo qasheen nimanka macawisleyda iyo ma arkaysa kuwa argagixisada ee shabaabka isku beesha ay yihiin ha qorshe la isla og yahay inuu socdo waad aragteen marka waxa la yiri hubka dhiga guriyahana ku xarooda anigu xalay maan habeen horena waan idin sheegay qatar inay soo socoto ciidamada in la rari rabo xalayna waan idin ku celinay shalay marka waxa lagu yiri ciidamadii shalay soo dul degay ee Armooley ee walaweyn ay furugo u dhow maylan agteeda oo 300 oo askari aha iyo macnii shalay filmaantii la iska soo duubay leego iyo ma arkaysa yaaqbari weyna dhaca iyo kufsiga iyo haysashada baabuurta aad aragteen shalay u dambeysay caas baabuur iyo dadkiisii lugaha lagala baxay
iyo macnihii gogoshaan maanta mirifle uma baahnin waa inay ka baxaan la yidhi juujuubkan macnihii garre waa inuu ka baxa geladi waa inuu ka baxa beemaal waa inuu ka baxa mayland oo dhan annagu shanta caleemood annaga waxaasoo dhan waa wax isku xiran haddana noo calaameeyaa timaaday taliyii guutadiina wuu juujuubay dadkii kuwii naga saar ay dhaheenna wuu ka saaray noo calaameeya iyagoo dhahayna taliyaha guutada dhul la iskuma haystuu yidhi ma laga wada hadlaayo alloore maxaa laga wada hadlaya baa la weydiiyey cumar xaajiyow adiga hirshabeellaa tahay waxa socdaana naloogu soo duulay waa dhulkeenna maxaan isku haysannaa wuu ka jawaabi waayey su'aalihii jawaabta oo uu u waayey waay uu ka aamusay isaga iyo ninka mayland u dhashay ee wasiirka dekedaha oo daba dhilifka ah oo axmed cumar la yidhaahdo oo weliba u dhashay wallaweyn oggolaaday dadkiisii in hubka laga dhigo isaga iyo koosto waxay oggolaadeen dadkiisii in hubka laga dhigo guryaha lagu xareeyo isbaarada albaabadooda la dhigto sagaalka isbaara la soo celiyey isla markaana waxay oggol yihiin in oo loo diray fiiri anigu nimankaasi gudahooda ha la fiiriyo koosto iyo kuwa lamidka ah iyo wasiirka dekeduhu bal in ay gudafayow yihiin ha la baaro ani u malayn maayo inay gudafayow yihiin inay wax gaareen baan u malaynayaaye si fiican ha loo soo baaro macnihii ama ma gudafayooba ama ma gudafayoobo macnihii asalkoodu sheegad bay ahaayeen mayland asala ma ahan gafanka wallaahi billah ilaahay baan ku dhaartay nacas gaabiyaa yeela iyo garasho doofaare guuleed kamaba suurowda iyo geesi guntaday weeye gabayga aan ku leeyahay nacas gaabiya iyo garasho doofa macnihii guuleed kamaba suurowda iyo geesi guntaday nin u dhashay mayland dadkiisii hubka dhiga dheh inta la dhaho kuwii ku soo duulayna ay dul taagan yihiin dhulka noo kala go hayele nacas gaabi iyo macnihii gaabiya oo garasho doofaar waa ee guuleed kamaba suurowda iyo geesi guntaday war guuguulahaasi garoommada beenta ka gowgowlay gumaysi diidaha sheegga iyo waxbaan kuu garanayaadooda gafanka iyo goobaha iyo gabadha guurguurta gaarilaha iyo garuunlaha ay geeraarka ku ammaani war afar gaaraha joogta wax kale uguma geeraarin goongoon cidla ah bay waddaa gaardis badane gardarro iyo bele iyo intay guluf nagu geertay gantaalku markuu duulay oo shacbigii gees walba u gudbay kuwaa galeenka inaga dhigtay ee sida webiga la gelaayo guruubku waa magacyaday nagu gumeeyaane soomaaliya gugeedaa yaroo looma gaabiyo gembiye oo gumaysi baa ka weyn aafooyin geline gawaanada gafanaha degay iyo tuugga garwadeenka ah gorfayn maayo hadal san iyo mid gaadhisa la iska gaambiyo aadna waaban uga gaabsadaa geedigan jirine intii ila garanaysa iyo ra'yigan wixii ku go'owba markhaati baa sidaa iigu geli garacna yeelkiidhe waxaan ula jeedaa waa garac weeye kama suurowdo geesi guntaday inuu sidaa ku dhawaaqo hubkiina dhiga kuwii ma arkaysa soo duulay baa idin waardiyeynaya oo leega isaga soo duubaya filimaanta shabaabka ku lamaanan oo is og yihiin oo macnihii ka go'an ku goodiyey buura kaba inay qaataan oo yidhi kama baxayno oo ku goodiyey ma arkaysa inay iska leeyihiin buur eyle oo ku goodiyey inay leega leeyihiin oo ku goodiyey inay yaaqbari weyne iidow jilla ay iska leeyihiin oo ku goodiyey beledal amiin iyo afgooye inay leeyihiin oo ku goodiyey wallaweyn in qad cagaaran loo dhigo wallaweynta nafsadeeda qad cagaaran in loo dhigo loo kala gooyo qorshe loo dhan yahay waa marka annagu sheegis baanu leenahay allaahuma ballaqtu ayaan leenahay soom baa la gaaray macnaheedu ilaahay ka cabsada yaan la idinku shibinin ilaahay ka cabso waa kelmad xaq ah waa oggolaanaysaa laakiin ilaahay ka cabsada marka aad dhulkaaga iyo dadkaaga aad u doodid lagugu shabinayo cibaadada ugu badan xaqa marka aad sheegaysid ramadaanka ajirku waa dhabal malaa'ig ma qorto ilaahay baa qora gabadha la kufsanaayo dilka iyo dhaca marka aad ka hadashid ilaahay ajirkaaga dhabal buu ka dhigayaa xisaabtaadana rabbul carshal cadiim kaliya og marka dadka mayl kala qaada oo indhaha fura ramadaanka marka la gaaray ku cibaadaysta isbaarooyinka inaad iska dhicisaan gabdhiina waxa kufsanaya inaad iska dhicisaan kuwa soo nabi maxamed badr dagaalka wuxuu galay maalin soona iyadoo ay tahay waad ogtiin quraanka soon buu soo degay oo culayska badan dagaalkii kunka askari ee macnihi abi jahl uu watay nabi maxamedna 300 oo xaaladdu ay adag tahay ramadaan ayuu dagaal galay marka ajirku waa dhabal marka aad ma arkaysay idinkoo sooman xaq aad ku diriraysaan oo cadaawaha
yuhuudka ka daran aad iska qabanaysaan marka yaan la idin dhihin soona la gaaray yara aamusa soonku waaba cibaade waaba dhabal inaad shayaadiinta iyo nafta iyo kuwa wax kufsanaya iyo daalimiinta aad la dirirtid war jannadaadu waa dhabal haddaa ku dhimatidna haddaad dishidna jannadaadu waa dhabal marka waxaan sheegaynaa oo aan caddaynaynaa mar kale dadka reer Mayland waxaanan ogayna way jiraan kollay dhulkan maraan dheerayn waa lagu kala bixi doonaa warkan annagaa idin dhahnay SMC iyo jugta culusa waxay idin leedahay dhulkan maraan dheerayn leegaa la isku sawiraa iyo iidow jalaataa la isku sawiraa iyo iidow jillaa la isku sawiraa iyo buura kabaan leenahay iyo walaweyn qad cagaaran loo dhigay iyo goobaan leh ilaa iyo siinka dheer waa la iswarsan doonaa biidnillaahi baari iskama aynan dhihin ilaa iyo siinka dheer maraan dheerayn baa la iswarsan doonaa haddii allah awoodda leh uu ka raali noqdo haddii eebbe maya uusan dhihin walaweyn in lagu murmo iyo goobaan leh iyo leega iskaba dhaafe siinka dheeraan isla warsanaynaa xamar baan iskala hadli doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo warkaan anigaa idin dhahay ilaahay ka sakow tiimka jugta culus iyo SMC baa idin dhahday ilaahay ka sakow SMC baa idin dhahday xamaraan iska warsan doonaa ilaahay idamkiisa maraan dheerayn ama macnihii beenbeen u qaado ama runrun u qaado walaweyn in lagu murmo waryaa sankayga iyo afkayga inta u dhaxaysa in subxaayo ay marto majid baa ka furan weeye wallaahi xamaraa la isku waraysan doonaa biidnillaahi baari soonkan gudihiisana waxaan rajaynayaa in si xun loo afuri doono si xunba in loo afuri doonaan suga haddii allaha uusan maya dhihin Allah is the best planner ilaahay baa ah midka qorsheeyaha inta wax qorshaysa midka ugu qorshaha wanaagsan waa ilaahay man proposes and Allah disposes haddii iyagu ay soo shireen oo isdhaheen ku mashquuliya dadkan walaweyn iyo aaggan si marka iyo baraawe iyo ma arkaysa macnihii afgooye iyo siinka dheer aad u qaadataan hadday isdhaheen xamaraa la iska waraysan doonaa insha allah ogaada xamaraa la iska waraysan doonaa xisaabtana waa gedinay maxamed cabdillaahi farmaajo haddii inta yar ee noo dhiman aan wada dhammaysanno dhammaanteenna waxaanu nahay farmaajaan nahay haddaan ba idiin sheegaynaa waaba rognayba ciyaartoo dhanaan rognay annaga wax yaraa noo dhiman xarigga madaxweyne mukhtaar roobow iyo waxaa noo dhiman wax yar oo macnihi aan kala saxiixanno wixii ka dambeeya wayba isku dhammaatayba hadalka aan dhahayo kolley dad badan oo siyaasadda falanqeeya waxna la socda ama salballaar tuu ka mid ah ama macnihii Mayland u dhashay ama Soomaalida weyn laxan bay saaran karaan wayna fasiran karaan waxba hadal anigoo uusan iga tegin waxba anigoona sheegshay idin roonaan lahayda mar badana idin dignay idin roonaan lahayda inaad mayga garabsataan shabeellada hoose idinkoona waxba idin kala gaarin inaad isaga huleeshaan oo macnihii walaala ka dhigataan idin roonaan lahayda soon baa lagu jiraa beritoolo waa soon ereyada aan leeyahay waxaan u malaynayaa qaabkan inaan u hadli doono u malayn maayo maraan dheerayn idin roonaan lahayda dadka ilaa iyo garoowe idinla qabtay 91dii dagaalkii xadka iyo xawaaraha ciidanka idin ahaa dadka dawladdii Cali Mahdi idinla dilay waa SDM waa Mayland waa dadkaasi calooshoodu ay daadsan tahay ilaa iyo Ethiopia ilaa iyo Mandheerawa oo dhulkan bahgooyada ah oo macnihii nafaqada iyo qudaarta ay ku taal macnihii barwaaqadii Soomaaliya iskale waa idin roonaan lahayda waxaan dhahdeen waan isu tanaasulnay qoor baan la shaqaynaynaa oo macnihii dadka Mayland ma lo'ba markaa soo heshiinaysaan yaad u heshiinaysaan ma Puntland aad u socotaan farmaajo inaad meesha ka tuurataan kasakow Mayland inaad dhibaataysaan baad u socotaan waliba farmaajo boorsadiisu wataayadha meesha aad u socotaan shabeellada hoose iyo Mayland waa marka laakiin mar kale aan ku celin doonaa shallaay waxaa la yidhi shallaayow ma dambaysaa mise waad horaysaa qoomamooy ma horaysaa mise waad dambaysaa idin roonaan lahayda nimanka maanta macnihii walaweyn duulaan ku soo qaaday shabeellada hoose si ay u qaataan raba idin roonaan lahayda Mayland inaad la heshiisaan oo macnihii dhulkeeda aad u firaaqaysaan idin roonaan lahayda wallaahi koraa u diibsanaysaan ilaahay baan ku dhaartay kor ayaad u diibsan doontaan xiin maraan dheerayn
حين مران ديرين والله إسكاكين ورسان دونا سياسيين تيني يا مدح ديني يا عدود دين أردنا الله إسكاكين ورسان دونا وربضان وريوسان إلى تجين ولا وين هدي أدوم ليسد إلا إسكو هايستو حمران إسكو وريسان دونا مران ديرين ما لقوش حاجة إيده وجلاته إيو معني لاجان إسكو سسورة إيو دوران قبركو كفسنا إيو هل ميدان دردار ما يمرك دتك ما يلان وحان لا يا دتك ما يلانو باشا وإسكو توستي تاغلو مهلا يي تاغنت تليان قوتادا ماشا فرديا إيو كوا لاميدكا معني سالبالارتوغا iyagoo war aanan haynin ayaa meesha macni laga burin doonaa maxaa la yiri waxaa la yiraahdaa furuq hadduu yimaado waraabo waa fara ku leef furuq hadduu yimaado waraabo waa fara ku leef ha booteeyaano ha bugbacleeyaano reer walaweyn waxaan kula dardaarmayaa حينكاسي كوبان انت ير اللي سو مقان yahay walaalayaal hubkiina dhigina ha ogolaanina wax walba idinku qaadato haddaad imaqlaysid dacar ku sow haddaad imaqlaysid cali ku sow haddaad imaqlaysid macni raggi ay diid kaba la'aanta eriyow xiinkaasi yarka ah hubkiina ha dhigina nimankan danaaba loogu soo socdaaye ha dhigina hubkiini xisaabta way isbedeshay hubkiina ha dhigina futajiir ha galaan kadib markaan xamar isku waraysano wala weyn lagu murmi maaye iyo iidow jalaato iyo leege hubkiina ha dhigina intaas kaliya nagu sima adkaysi yeesha just minutes daqiiqado saacado maalmo bal aan dhowrna maalmo intaas kaliya yur iska dhaha midda kale mayga waxaan la dardaarmayaa oo aan u sheegaya walaalayaal dhul haddii la leeyahay dhul idinka la idin baahan yahay saaka haddii dhammaantiina la idinka soo tarxilo gobollada Soomaaliya oo dhan 9 gobol baad leediin reer Mayland Hiiraan adinka leh Shabeellada Dhexe adinka leh Banaadir adinka leh Baay adinka leh Jubbada Hoose idinka leh Gada idinka leh Bakool idinka leh adinka ayaa iska leh Jubbada Dhexe 9kaasi gobol ayaad iska leediin reer Mayland degan oo reer Maylandku mar kale aan ku celin doona jareer weyne waa Mayland 44 qabiil duruqba waa Mayland 12 koofi waa Mayland mashunguli waa Mayland bandabo waa Mayland qalinshub waa Mayland turki Soomaali waa Mayland arab Soomaali waa Mayland burtuqiis Soomaali waa Mayland sidoo kale waa Mayland ma arkayse macni qalinshub waan sheegay waa Mayland waxa macni Mayland باجون وميلان هير مركود وميلان هير ربدور وميلان البردن وميلان سيداسي اوجد ماجورتيغا Soomaaliya idinka weey fiiri maxaad u baahan tahay dib isugu noqo horta waxaad haysatid markaad ogaatid iyo tiradaadi waxaad ogaan kartaa ka tahay fiiri waxa ku baxa digirta adiga ay ku baxdaa waxaad u baahan tahay oo dhan aan ku sheegay maxaad u baahan tahay digirta adiga ay ku baxdaa oo noocyadeeda kala duwan galayda adiga ay ku baxdaa noocyadeeda kala duwan adiga ay ku baxdaas masagada macalla doqonka noocyadiisa kala duwan cad iyo macni guduud adiga ayay ku baxdaa macni bataatiga adoo ku baxa sisinta aday ku baxdaa gabaldayaha saliida aday ku baxdaa macsarada aday ku baxdaa cadayda oo looska adiga ay ku baxdaa looska laba ama saddex midka u dhalaa ku baxa bataatiga ku baxa baradhada waa aday ku baxdaa waxa ku baxa oo kale qaraha aduu ku baxa oo qara dameer aan ahayn sida kan galmudug oo laga dhargo biyihiisi oo macni family oo dhan aan dhamayn karin hal xabo hadii la qalo hal maalin adiga ayuu ku baxa tubaakada xataa mandooriyaha adiga ayay oo macni maska qofku qaniino la saaro xaraan baa taaday ku baxdaa xashiishka dhulka lagu beerayo adaa iska leh xashiishka dhul kasta kama bixi karo wuxuu ku baxaa dhulna faqale macdan uu ku baxaa xaraan baa aado dhulka lagu beer adaa iska leh oo indha caday iyo xasan jaamici ay ku beereen fiiri cambaha yaryarka iyo waaweynka cambalafka la yiraahdo oo halkii gaari oo candamaydle ah hal geed kaliya ku filan gaariga sida loo wada hal geed inta la hoos geeyo
معني كلية للوحو ساس لو لوحو أو معني باور كبحسمو لحظة بقول إيه جدود بيدبا جنالي بالفيري لحظة بقول إيه بورد جنالي كلية بيدبا تو بالفيري أديك أيا عم بهاس إنه يديس كلا دون وكوبحة سيتون كأديك وكوبحة دنجلووجا أو إسلامها مركي وريستان أو ولعان أو لبلبودان ولا ليال ملكنا كما بحا أديك وكوبحة إسبانديسكا أو دنانسدان هوينكا إيه أنت ديجيريد هيسا أديك فيتامين سي كلاجهلو أديك أيو كوبحة وحاكلتو كوبحة عنب كلاياب كلا أدو كوبحة تفاحة أديك بيري كرا أو دولكا وكبحايا تفاحة قبو وبهايا دوبين وقبو بسشان بريدة وين أو نوعية ذا كلا دوان عدان ومعنيه وليبا هرمونada badisa ragga iyo dumarkaba aad garanaysaan oo cadaan iyo casaan leh adiga ayuu ku baxaa maylanow fiiri adiga ayuu ku baxaa dhulka wabiyada adiga ayaa iskale labada wabi jubba iyo shabeelle adiga dhulkaaga waay adaa iskale fiiri wabiyada marka laga yimaado dhul 1 mitir ama 2 mitir marka la qoro oo bam la saarayo biyaha ay soo burqanayaan adiga ayaa iskale haddana fiiri basbaaska aduu ku baxaa بربرونيكا عدانكا معني دوغا يا عسانكا اما جدودكا اديغا ايو كوبخا كوستدا اداي كوبخدا كبلا ادو كوبخا معني اديغا ايو كوبخا ما اركيسا اسبيناتكا او معني كالسيومكا لفا ديسا اديغا ايو كوبخا فيري وان ودايا ولي ما دhowa waxyaabo badan baa iga maqnaan karaya adiga ayuu ku baxaa waxa ku baxaya bahashan iyaduna ma arkayse mandarinida ay dhahaan leen dhanaantan aan ahayn kalawmentiini u dhaha ingiriiska ama jarmalka adiga ayuu ku baxaa babayga nuucyadiisa kala duwan oo macnihi qofkii caloosha laga haayaba halkii mar ee ma arkayse macnihi loo kala jeexaa oo cunaaba caloosha liin marka loogu daro aduu ku baxaa xoolihiina day hadde fiiri geela adiga iskale kan la dhoofiyay kan kalaba ariga tirada badan fiiri geel bakool iyo geel adable kala qaad ari bakool iyo ari adable oo kala qurux badan kala qaad oo loodan tirada badan fiiri laxdan dada weyn wankan macni laxdan bari macni wankan barida weyn adiga iskale oo sacuudiga carabaha loo dhoofiyo adiga ayaa iskale haddii xoolaha socda aan xagga ka imaano subaga iyo caanaha marka aan xagga dhigno day sagaarada la cuno leego maxaa loogu tagaa waa suuqa macni waa maqaayadaha sagaarooyinka hilibka sagaarada macaan loogu tago waa leego iyo aagaasi ilaa iyo buur eyle dhulka ugaadha ilaa iyo xudur la ugaarsado sagaarada deerada eelada waxyaabaha la ugaarsado dhan dhulkaaga ayaa laga helaa haddana meel kale aan kaa tusaaya day waxaad fiirisaa dad baa waxay u maleeyaan ugaar markaan iraado cay soomaalida macni dib u socodkeeda waay war adduunka ugaadha batanti baa loo goosta oo macni ninka ugaarsanaya cadaanka ah oo hadda macni Soomaalida ay gacmaha u horsadaan qaxootiga ay u soo raadsadaan wallahi sagaarada iyo ma arkayse macni hiir shabaashan ay dhahan deerada marka la ugaarsanayo lacaga dhiibaysa iskama dili kartid macni Europe iyo America haddii kale maxkamad baa lagu soo saaraya ugaadhana nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabadiisii oo adduunyadan intii soo martay u sharaf badan ayaa ugaarsan jiray Soomaalida dib u socodkeeda waxa kamid ah waxaan xasuustaa dawladii siyaad bare kalluunka dadka soo dabta in la cayn jiray la kalluun ay dabtaan kuwii sidaas dhigi jiray waa laga kari laayahay doomaha iyaga macni badda ku jira isku soo wada duub aqli xumada iyo masquul dhaqida Soomaalida intay dalkeeda wax ka soo qabsan weyday dadkii cadaanka maanta ay u hoos joogto bal sagaara iyo deero macni nin gaala iyo kalluun oo meel macni bulaacada uu ka soo kalluumaystay ayay macni saf ugu jiraan ay qaxooti u yihiin ma garanayaan dheefta dalkooda taasi macni jaahilnimaan u arkaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaana macni iyo asxaabadiisana ugaarsan jiray ilaahay baana ku maadsan nin ugaarsadaana macni ninka ugu sharafta badan ugu xalaal cunka badan waay isbaaradu way ku faanaan iyagu laakiin ugaadha iyo shaqada iyo tacbashada dhididkana way ka faanaan waa dad ilaahay dooriyay way oo aayadihii ilaahay macni dhan kale u rogay marka isku soo wada duub nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wariyaan lagu dhaqan guurinin
yaan afka macnihii lagu nacsiinin waryaa xoolahaaga iyo ugaadhaada iyo noloshaada yaan lagu nacsiinin fiiri sagaaro waa macnihii waa nasabnimo ka bax inaa ugaarsatid aa lagu dhahaa hadda ma fahmaysaa iyagana sagaarada iskaba dhaafe doofaarkay gocoso isku haystaan doofaarka war gocoso ma wax la cuni karaa doofaarka aad og tahay ayay gocosada isku dilaan gocosadii doofaarka uu cunayay ay ka bursadaan ay ka cunaan marka yaan lagula ursiinin fiiri yaan lagula ursiinin beerahaaga kalluunkaagii baddaada xoolahaagii ugaadhaadii macnihii war geedaha xataa macnihii ursaaqad laga samayn karaa geedaha oo duurka ku yaal aan la beerin caleentooda qaar macnihii maayow lagu noolaan karaa marka waxaan kuu sheegayaa intaasaad haysataa inta u baydh haddana waxaad fiirinaysaa dhanka badda fiiri badahan marka iyo baraawe ilaa iyo kismaayo baddaan weyn adigaa iska leh haddii ganacsi aad u baahatid iyo haddii intaanoo qudaaro aan sheegay aad rabtid ilaa iyo yurub ilaa iyo carabaha inaad u dhoofisid carabta ninka aad u geysid 2 xaboo isbaandheesa amiirka fadhiguu kaaga kacaya hadiyad ka qaalisan ay jecel yihiin ma jirto marka aad u geysid 2 xaboo muusa ama xabad camba'a ama haddii 2 saytuuna aad qudaar aad ugu geysid waad ogtahay dunida macnihii sidaasay qiimo u leedahay hadiyadda qudaarta war waxaasaa dhoofin kartaa maxaa kaa maqan marka haddii dekadii aad haysatid intaasoo qudaara aad haysatid intaasoo dhul aad haysatid maxaad u baahan tahay lacagaad u baahan tahay soo manaa lacagta waa kuwa hadda aan kuu sheegay baa kuu keenaya adaa laguu shaqaynaya shidaal xagga ii dhig shidaal intaan la soo saarin xagga ii dhig warniyo waad isku filan tahay xuduudaad xiran kartaa xuduudahaagaad xiran kartaa wallaahi bilaa etoobiyaad ku darsan kartaa ama etoobiya macnihii dal la darisaad noqon kartaa dad socon karaa tihiin dad socon kara somalilan oo macnihii dekadda berbere keliya iska leh oo dhulbeereedka adigu aad leedahay aanan lahayn oo macnihii ugaadha adigu aad leedahay aanay lahayn oo xoolaha adigu aad leedahay aanay lahayn ayaa dal gooni oo 30 sano gooni u istaagay oo socda oo lugiisa ku socda ammaankiisana sugay waxaan sheegaynaa xaafad kasta 20kii guriba hal qof mas'uul looga dhigaya may dhalada markaan leeyahay waa qowmiyadan aan ku soo tiriyay 9 gobol degan iska leh waa hiiraan macnihii jareer weyne ma arkayse macnihii reer xamar duruuqbe 12 koofi beemaal ma arkayse gaadsanka ku dar ma arkayse waxaad ku dartaa macnihii coormalaha waxaad u geysaa macnihii baajuun mashunguli waxaad u geysaa ma arkayse makane waxaad u geysaa carab soomaaliya carab turki macnihii waxaad u geysaa carab yemen waxaad u geysaa ma arkayse burtuqiis soomaali waxaad u geysaa 44 qabiil ee macnihii mayow mayga ah oo macnihii tiradaasi ka badan ilaa iyo mandheero daadsan ilaa iyo jaad daadsan macnihii dadna waad haysataa tiro marka wariya dhammaantii waxaan u soo galay inaan idiin sheego shirkii salballaartu reer wallaweyn ama reer mayland inuu fashilmay baan idiin sheegaynaa oo macnihii hubkiina dhiga la yidhi dadka soo duulay oo hadda macnihii meelaha dadka ku kufsanaya ayaa wallaweyn ilaalinaya wallaweyna qad cagaaran noo dhigay dhaheen macnihii hana loo kala gooyo hana loo kala calaamadeeyo haddaynu nahay irir Soomaali ay dhaheen salballaar shirkana waxay dhaheen waa in laga saaraa mirifle siduu u dhan yahay miriflihii baaxaddaasi weynaa miriflihii geesiga ahaa miriflihii salballaar u soo qooyey 1998 miriflihii dhabarka dhun dhashiika isagoo haysta caydiidka mooryaankii dhabarka dhun dhashiika kaga soo dhuftay isagoo ooliya barshaato marsan dhahayana nafta macnihii kaga baxday miriflihii geesiyaasha ahaa naga saaray dheen hana laga saaray dheen toorotorowgii ballaarna garre tunni baraawe biimaal aal naga saaray dheen shanta caleemood iyo iri Soomaaliya shiraay weligaa ma aragta adiga iri Soomaaliya waa kaar hawiyaha la sheegayo waa kaar niman dan leh markay ku soo xumaato ay ku soo ciriiri noqoto ayaa adeegsada waa jaranjar ay meel ku fuulaan weeye shalayna lahaayeen iri Somaliland xataa macni annagoo iri Soomaali aan ahayn oo maylana iyo jareer weyne iyo reer xamar annaga xataa way nagu darsadeen waad ogtiin caydiid
markii salbalaar uu dhisay tarabuunku isugu keenay wuxuu madaxweynuhu noqday isagu madaxweyne ku xigeen wuxuu ka dhigay maxamed nuur caliyow oo Mayland ka soo jeeda oo reer Buura kaba ah iyo Bay fiiri maqaayadan isagay u shidan tahay wuxuu arbow uu meesha keenay iyo Sheekh Jaamac Samo jareer weyne iri Soomaaliya laga dhigay iyagoo dhan wuxuu meesha keenay jini boqor uu keenay oo Puntland ka soo jeeda hadda ma fahmaysaa markaasa tarabuunka intuu macnii safo nimankan Soomaalida kala ah oo iri Soomaaliya ugu sheekeeyay Umar Carte Qaalib iyo raggaasna macnii uu soo dhaweeyay waxaan dhihi lahaa reer Somaliland uu qaar keenay buubaa iyo moogi reer xamarna uu soo taajiyay maqaayadana isaga ay u shidan tahay kuwa kalena looma ooyaan ay yihiin sawirkana uu ku dhacayo Soomaalidan kale wuxuu inay dawladdiisii u tuso waataad ogeydeen cakaare markay xabadda ay ka soo bilowday Saybiyaano oo tarabuunka lagu shiraayay ninkii reer xamarka isagoo khudbadaynaya xabadda marka la waalay waa tii uu mikrofoonka uu ka yiri weedhe caan baxday hala jiifto waatan uu yiri ninkii reer xamarka waraa hooy xabadda naga joojiya haye haddii aad naga joojin weysaan maxaa soo socdaa laysiri haddii nin reer xamar oo dhahay haddii xaydiidoo meesha taagan haddii xabadda aad naga dayn weysaan haye balaayaa soo socotaa laysiri ma og tahay hala jiiftuu yidhi hala gambado waa ururiseen waxaasaa noo keenteen marka shalay baaba iri Soomaali aad ku qaraabanayseen moogta shalay baa sheekooyinkaas dhisayseen annaga ayaa macnihiina lahaydeen beel hebel iri Soomaali waay oo annaga beelaheenni ka tirsan adinkana annaga naga yimaaday nagu caasiseen aan ognahay caasiyaal baa tihiin ilaahay baan idinku dhaarinaye Soomaaliyay erayadan ii soo baara Soomaali weynay erayada aan idin weydiinayo idinkoo xaqsoor u hadlay ii soo baara maaymiya mise maxaa waay waxaad ii soo baadhaa af maaymiya mise af maxaa waay ilaan af maxaaga wuxuu yiraahdaa waxa af Ingiriiska lagu yiraahdo ancestor oo ah abshaxan ayuu dhahaa abshaxankaaga markay caynayaan waxay dhahan abshaxankaaga abshaxankaaga saas okay laba eray baa jira midna waa reer xamarkana waa Mayland midna waxa weeye waa ab iyo abuulan labadaasi waa maaymiya mise maxaa waay okay gaal ma mayba mise maxaa waay soo qorode gaal maxaaga wuxuu dhahaa geel maygana waa macnii gaal ab may waay mise maxaa ab iyo gaal hadda qabiil baa ab iyo gaal la baxay ab lagu daray gaal qabiil baa la baxay abgaal waa macnii qabiil wey ma annagay naga yimaadeen magacaasi cunug ninkii dhalay baa magac ula baxay mise qof kale okay meel kale aan fiirinayna haddana hiraab ma af maxaa miya mise af may waay Soomaaliyay xaqsoor u hadla erayga hiraab qaamuuska Soomaaliga ma maxaaba mise may wey dad baa hiraab la baxay nin ma arkayse hal subax naga tagay buu ahaa oo annaga haddaan Maylandna hiraabtii naga baxayaan dhan hiraabtii guuray ninkaas nin annaga naga mid u ahaa hay hiraab ma mayba mise maxaa waay ilaahay ka cabsada soon baa soo dhow been ha sheegina macnii rag iska dhicin iyo rabbi ka cabsi meel ma wada galaan hiraab ma af Soomaali ba gaal jacayl ayaan kala qaadaynaa jacayl waa af maxaa waan ognahay jacayl ma af mayba mise af maxaa waay gaalna waa maxay maymiya mise maxaa waay ilaan maxaaga geel u dhahaa ma ogtahay gaal maxaa loo dhii waaye geel jacayl maxaa loo dhii waaye annagay naga yimaadeen dadkaas oo dhan okay meel kalaan fiirinaynaa erayga leena futo waa la farsameeyay futo ayay ugu yeereen futo markaa tiraadid nin kasta oo saqajaan ah macnii dhaguhu waxay maqli og yihiin xumaha inta badan futo ma ahan midaan lagu saxroodo kaliya ma ahan si kala hadaan u dhigno futo waxaa loo yaqaanaa buraha ama gaawaha ama haruubka saa doontid ama haanta marka caanaha lagu shubo ee la ruxaayo si burcad iyo subag looga dhaliyo daboolkeeda waxay leedahay meel daloosha meeshaasi daloosha
معنيه وحال الجليا صوفير أما مرير بالجليا وحال وجود دمية عانها إن أي جرورين أو السبق دلين أما برعت أي دلين إن كله ما يجوعوا دا فطاء يدا مركز ضلال كاسي كسوق قادين ماشان هذا الضباط اللي يقول شيء جايو فطاء في صومالي يقول يدي ما يكيم هذا أرجس أصلك معنيه ضلال كاسي معنيه الضباط يا يسوع كاضي مركز محاجي ويقاتين فطاء يقول يرين معنيه ماش حار كسوق بحي صحراء السيندة سو ما جديد أرجع فطاء مركز أفيريسيد ما مركز حوالها معنيه عنا للروح عيو ديشة مركز للروح عيو ديشة مالنا ولا لينكح يا واحد جرا معني فطاء يا جرا لينكح وحاوي الدبول كي أفك الدبولك هانت مركز الدبول هاي سي عانها هانت اللي قشوا بي أيصن معني أس قضاضن معنيه ما يرح على سوق هذا وعلى سوق هذا معني قلولك لصوفي قي أوكله معني أصلاً أيا لجوا رجيا سافرك لجوا رجيا هانت مركز على صارا مكب ساسا لوجليا مركا إسلامتا عانها قاضيسو ومال كلا أوضا مقالة أوضا عانوه كما تفقايان ومعني أمان كيبا سوغان ووحا أرنيل كأوكالي تصالحان أرنيل في إنجليزي أما طلياني أرنيل وامحي أرنيل وحاوي أرنيل وحا ليرادا أرنيل وحا ليرادا مركب بولك مال لقو جنايو معنيه جرمالك موتر ودا ومعنيه للربوه بولكاسي سفي عن إنه أدوجيو هداي ليكويد أيهين وحال لقو دوجين معنيه لدوجيناي للربا إنا يسان صوتفقين سفي عن وقو حرمو أما يسان دقاقين مركا لينكحا فطها سيدا واي مركا إرقا فطو ما يبا مش محاواي مركا وانكو شرحي إلهي كعبسو وحاب هنا شيئين رق اسكدعين يا ربي كعبسنا ميل ما ودا قلان سؤال بانكو ويدينا يا برار في صوماليا ما يميا مسامحاوا برار اوكي اريغا بارميد واد ارغتين هذا كوان معني قبلي شمبرتي ميلان كو دheelaaya gobolladan kale iyo wali shaqada baraaray ku soo daraan waxay ku soo daraan ma arkayso baaran bay ku soo daraan waa kula baaramaya baaramid ma af ma iba misamaxawa هارو ما أف صومالي با ما يبا مسمحاوا هرجيل جيل وأف محا هروب ما أف محا مسماي هروب يقال لبضا ما يميا مسمحا هروب قال هي براروا ماي very good سيدو كله ما أركيس ما يبا مسمحا هرتي هذا قبيل دنبا وحالي هرتي أي الله هرتم معني ما يبا مسمحا what's هرت هرتي وامحي هرتي وانين ناقبوا اما نين عادي هو هبلايو هرتي جيدا ناقتاس هرتي ما قبا مسما قبو معني هرتي واي نين واي اريق هدي لا معنيو اف محاغا وحا وي نين وي ما يغما هرتي marka harti hadda qabiila leeyahay marka ma diidaysa dadkan inay anaga naga imaadeen ma diidaysa ay هذا ماشي لنا جوليس ماشي لنا هذا جوليس جول أف مايميا مسامحوا جوليس معني جول الجليي واي لقى رايي واي جوليس واي معني نين كان هو بحي ماله قبصدي قشي سي نقطي جول معني آجي سي نقطي لولكي سي نقطي واي جوليس واي جوليس وحي لا جدي وحي أبدلين جوليس بورا لنا هذا كويا لبوساسي آجي مركا تجيس ما يبقى كتلين جري دقنا جري الماي بحي او ماشي دغاي واي جوليس معني waxay noqotay meel goshiisa gol maxaamiya mismay waay gol ereyga gol ii sheega gol adjective ka dhif sifa ka dhig lis lahaansho waay golis goshiisa waay hay ma afmay ba mismaxa waay marka nimayow dadka mayga ah saqaafadiina fiiriya waxaad ahaydeen fiiriya بروفيسور يحيى عامر با إذن شاقي إن معني تاريخ دين اللي دوغي إنا صومالي ودن أكتلين جرتين إن أفقو يكلية بقرطو يدي بقر كي جوغي مركا لغاي مادو بقرطو يدي بورا كبا قيد بابو أما قيد بابو يوغو مركا حمينا يان قيد شامبو ويدان إيو تي لوخ جناني بقر كي جوغي حتى كما سلامي جرين
nimankan maxaaga gacantiisa kuma salaami jirin marka salaan ay u soo taagaan cadaygu u taagi jiray rumiga hadda erayga rumi maaymiya mise maxaawa rumo cadayga maaymiya mise maxaawa way isticmaalaan rumigu u taagi jiray markay gacanta u soo taagaan salaam calaykum ay dhahaan gacantu macni rumigu saari jiray gacantiina yasan itaaban u dhigi jiray saa uma jeedid isaga cadaynaa yaxya caamir oo galmudug ka soo jeeda wuxuu leeyahay 6 kun oo ciidamo ah afgooya boqorkii fadhiye kaliya dhaqaajin jiray afgooya kaliya iskaba dhaaf meel kale ilaa iyo turkiga ayaan safaarada u dirsan jirnay dawlad gooniyaan ahay soomaaliyada lagu sheegayo war 500 oo sano hadda mid waxaan arkay 500 oo sanaan daris ahayn oo aan isla deganayn reer walaweyn kuwa dhahayaan arkay reer amiin jeeso salbalartu 500 oo sano Soomaaliya ma jirine ereyga Soomaaliya orod bar ereyga Soomaaliya 500 oo sano ma jirinba 500 years Soomaaliya oo dhan magacaan SOMALI ma jirinba lama samaynin Soomaaliya waxay jidhaa dhowr boqol oo sano ay jirtaa 500 oo sano ma gaarin 500 oo sano ma gaarinba waxay dadku u noolaayeen boqortooyay u noolaayeen qardho waxaa deganayd oo ka talin jirtay ilaa iyo macni dhulkaasi bariga ah boqortooyo la dhigi jiray Cismaan Maxamuud baa ka talin jirtay Soomaaliya intaan la dhisin ka hor waxa magaca Soomaaliya intuusan iman ka hor waxa ka talin jiray Cismaan Maxamuud ayaa qardho ka talin jirtay ilaa hadda boqortooyo waa Cismaan Maxamuud hadda tagtid dangore iyo kayaka ilaa iyo ma arkaysa macni meesha la yiraahdo Sanjil iyo Sheerbi meeshii ninkii Talyaaniga loogu magac daray markaa Boosaaso u socotid ilaa iyo Buuriya alxamdulillah ilaa iyo laagta biyaha mara ee macni babayga macni yar ee ka baxaya saytuunka yar macni waa boqortooyo ka talin jirtay Soomaaliya ma jirinba awalna waxa la dhigi jiray dhulkii udgoonka la dhigi jiray oo Puntland oo Meydiga oo aad garanaysaan iyo Xijiga ayaa ka baxa bariga Puntland oo macni ilaa iyo Cumaan ay u dhoofiyaan hadda intuu dhaqaaluhu ka soo galay baa leedin Boosaaso kaliya dhaqaalo uma ahane dabcan waa baraag baa ugu taala laakiin macni dhul niman carab ay degan yihiin oo hadda qudaar ay ku beeraan baa jira barigaasi niman la yiraahdo Carab Saalax oo Cabdiwali Gaas macni ay dhaleen Cabdiwali Gaas abtiyaal u ah hooyadiisu ilaan waa Carab Saalax Cabdiwali Gaas waad garanaysaan ma fahmaysa oo barigaas degan oo qaraha Boosaaso laga cuno keena waa iyo qudaarta yaryar ee meesha timaada keena way ma fahmaysa macni Xijiga iyo Meydiga ayay iyagu macni ay soo saaraan ilaa Cumaan baa la geeyaa that's why annagu Cumaaniyiin baan nahay sababtay u dhahayaan oo burka dahabiga ah oo aad garanaysaan warshada Cumaan ee ku taala intay tagaan ay ku qoraan magacay rabaan ay ugu qor ay dhahan ay ka soo dajiyaan Boosaaso boqortooyada Cismaan Maxamuud baa ka talin jirtay inaan garanaa fiican ama caaya waxa tiraadaan jareer weeye dhaha iyaguna waa dhahdaan ilaan ma xishootaan abuurka Ilaahay xataa waad caysaan dad dhan oo jira oo meel degan ayaad waxaad ku caynaysaan jareer waaye Cadda Muuse jareer waaye Cismaan Maxamuud jareer waaye sidaas dhahdaan isbaarolay ilma isbaaroy saas dhahdaan laakiin annagu waxa tiin waan ogna we know you annaga idin garanayna annagaana idinka adag maalmaha soo socdana si fiican macni u qubaysta si fiican biyo fiican ma heli doontaane maalmaha soo socda si fiican u qubaysta soddon beri kadib biyo macni xilligii waxa gaari doonta naagta markaa isku daysaan ilaan biyo la'aan ka timaadeen ma ku ceshanaysaa mise waa ciid waa hebelow jaamacow faaraxow ma ku ceshanaysaa mise waa ciidaysanaya idinku soo socoto aniga been ma idin sheegayo nacayb gooniyana uma dhaayo sidaas laakiin xaqiiqan idin sheegayna wala weyn hana loo soo mariyo macni qad cagaaran waxa ka dambeeyaan sugayna xamaraan iska warsan doona xagga idhig waxaan u gudbayaa Soomaaliya boqortooyo u noolay nimankan reer Makana iyo Shabeelle la leeyahay ilaa ay qalaafa degan oo Mayland u dhashay oo Mayland ka tirsan Hiiraan ilaa ay Shabeellada dhexe dadka iskale loogu yimaaday ah oo beeralayda ah waxaad garanaysaa in ay boqortooyo lahaan jireen waliba hogaamiyooda nasiib buundo kii ugu dambeeyay ee gumaysiga la dagaalamay inuu yahay waad xaqirtaan waxaan u gudbaynaa ma arkayse inta waxa galadi afgooy isaga deganaa nimankan silcis iyo wacdaan iyo wadalaan la leeyahay intaad soo buriseen walaalihiini annaga magan siinay haddaan Mayland annaga dejinay
dhulkii gumaystaa aan ku riiqnay la foole ilaa iyo afgooyo dhulkan annagaa ku magan gelinay waan idinka celinay walaalihiinaan idinka celinay haddana hawiyuusam iri samaale xaqeennaa maqan aa meelaha la fadhidaan annaga idinkaa idinka badbaadinay markii aan afarta yaaq aan ka talin jirnay yaaq shiid iyo yaaq baraawe iyo laba yaaq oo kale oo koonfurta Soomaaliya ku yaala boqortooyooyinkii Maylana ka talin jiray marka maba ogaba Soomaaliya taariikhda Soomaaliya garan maayo boqortooyadii Luqganaane boqortooyadii Fayla Aro boqortooyadii Biyooley boqortooyadii ma arkaysa macnii ninka la yiraahdo dubka baalow baalqalooc boqortooyadii ma arkaysa Luqganaane iyo Baardheere jaamacaddii diinta macnii dadkii ka dagaalamayay iyo xertii Sheekh Uways Dheere wariyaa fiiri jidwaaq iyo Ibeerey nimankii la dhigi jiray dadka mayga ma yaqaanaan taariikhda in badan hadda ka hor Faroolaa wuxuu yiri Faroolaa Puntland annaga xuduudeenna ilaa iyo Diinsoor waayuu yiri sababta uu yiri ma taqaanaan sababta uu yiri yaa ii sheegi kara laba qolaa timaaday la soo dhaweeyay sidaana loo soo dhaweeyay fiiriya hadda sida dadkan dhulka annagaa leh ay u sheeganayaan si lamida sheekada bilaabatay ma ahayn way yimaadeen qaxootinimay ku yimaadeen Ibeerey la dhigi jiray Ibeerey waxay ku yimaadeen sifad diin in ay xer yihiin ay diin baranayaan ay diin dadka macnii ay u faa'iideynayaan iyaguna ayay ku yimaadeen Diinsoor bay yimaadeen Baardheere yimaadeen macnii jaamacadii Maylan ee diinta yimaadeen isla markii cabaar ay joogeen waxay dheen shareecada islaamka aan isku dhaqno annagoo dhan sida hadda kuwan oo kale hal isku dhaqaalayri waxay bilaabeen masaajidda inay dadku ku laayaan masaajidka Diinsoor waa qarniye ka hor masaajidka Diinsoor inay dadku ku laayaan macnii quraanka qul huwa allahu ahad dheh inay ku dhahan macnii ma ahanay si kala dheh inay ku dhahan si qaloocan alif la kordhabay alif la hoos dhabay ma jirto inay dhahan dadkii mar dambay baraarugeen mudday haysteen markay qabsadeen oo ay leeyihiin macnii dalka annagaa iskale waa in loo kala qaybiyaa sida kuwan oo kale Ibeerey la dhigi jiray waran iyo bilaawo iyo golxoob hooto iyo masaar iyo maqara lagu saaray waa sababta keenaysa maantay macnii ama keentay ninka la yiraahdo Faroole hadda ka hor isagoo Garowe jooga oo maamulka haya in uu media ka yiraahdo annaga xuduudeenna ilaa iyo Diinsoor waaye Diinsoor annagaa iskale inuu dhaho waxaa ka keenay taariikhdaasay raacayeen Ibeereydii markaasi meelahaasi ka yimaaday oo dhulkan lagula dagaalamay oo sheegay oo sifad diin ku soo galay oo macnii dhagta laga gadiyay ayuu raacaya niman la yiraahdo jidwaaq miya niman la yiraahdaa jira iyaguna oo tabtaasi diin ku soo galay oo Baardheere ay dhulkan macnii masaajidii dumiyay oo masaajidkay dumiyeen hadda Baardheere ku yaal oo la yaqaan marka in maanta wala weyn ilaa iyo buura kaba annaga iskale soodinteena hana loo dhigo in la yiraahdo sheekadan sheeka soo horeysay waa waxa hadda bilaabanaya maahan laakiin markaasi waa lagu kacay ebera laga dhigay haddana sidii yaa ku soo socota marka ma shakisani aniga shaki igama haayo nimankan in la burinayo oo macnii tii Ibeereyda oo kala lagu samayn doono wallahi shaki igama jiro maalma soo socdana war uu imaanaya haddii ilaahay uusan maya dhihin siinka dheeraan iska warsan doonnaa siinka dheer ayaan macnii saar iyo dheelriibi maal lahaa mayga saar iyo dheelriibi iyo waala iyo macnii waxaad dheeli jirteen iyo Beerey siinka dheer waa ku dheeli doontaan biidnillaahi baari ama celiya haddaad celin kartaan ama ooya ama walaalaanahay hadda soo dhaha ama hadda macnii soo baryootama idinkay idiin taallaa nin walba intuu shaqaystay nin walba intuu geystaa loogu geeyaa adduunyada waayahay baraabar ninka dhahay hal la arko baraabar waxba wariyuusan ila tegin ramadaanul kariim meel walba aad joogtaan barnaamijkeeni halkaas ayaanu ku soo afmeeri doonaa walaalayaal muuqaalka xiga ka hor haddiina la kala qaato dardaarankeena waxaa weeye ramadaanul kariim wala weyn shirkii waa lagu kala tegey nimankii waxay dhaheen soodinteena dhulka hana loo gooyo hana loo caddeeyo
mirifle iyo hana laga saaro iyo garre shirka iyo wixii la halmaala waana la diiday taliyaha guutadana wuxuu yiri hubka dhigaysaan sidoo kalena kuwa soo duulay baa idin waardiyeynaya sidaasuu yiri camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraadii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtoo ah kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal nafta la isu dhiibaye la isma siine muuqaalka xiga ka hor warka anigu aan sheegayo kan wala weyn marka laga yimaado in xisaabta ay isbedeli doonto maray ahaataba iyo macnaheedu wax inay socdaan way og yihiin dadka siyaasadda akhriya markaasaa isla hadlaynaa insha allah waxaan islaanaa fardows فإذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا